السلام عليكم asxaabteeda qaaliga dhamaantiin kusoo dhawaada Cooking Soca dhamaantan ugu cusubtidna kusoo dhawaada family subscribe saar gambaleelkan furo video walbaan soo gelisay dhaqsi kusoo gaara hadda Ramadaan mubaarak dhamaantiin adduunka meel walba ka joogtaan soo maqbuul soo asxaabta maanta xidii sameynaya shulba aad iyo aad u macaan badan dhamaantiin ka faa'iido doontiin cafur ahaan u sameeysan kartiin asxaabta maanta ugu cusub kusoo dhawaada channelkii Cooking Soca channel labaad ayaan leeyahay oo qorxinta daawil arkin magaciisa waa kee kusoo dhawaada linkiisa waxaan soo gelinaa videogan haddaan soo gelinaa comment ka dhexdeeda linkiga binaan saaraya linkaas markaa raacdid waxay ku geenaa channelkayga oo qorxinta sidaas oo soo booq kartaa markaad waxidin sinay sidaan u sameynaa maanta shulbahan aad iyo aad u macaan badan sidaas la socda dhamaantiin asxaabteeda qaaliga ah daawasho wacan marka asxaabta hal bakeer oo waxaan u baahnaa qamadi ayaa baaqligaas ku shubanaya maanta shulbaha aan karinayo qamadi ayaan ka sameynaya qamadigan mid kala soo shiido waay marka hal koob ayaan ku shubay baaqligaas tii hal koob wax badan ayuu noqonayaa daarabtid wax yar inaad sameysid nus bakeer qiyaastiisa ayaa karsan kartaa daarabtidna hal mar hal bakeer ayaa karsanay kadibna markaa karisid waxaa sameey kartaa laba qayb aad ka dhigaysaa qayb talaajada gashanaysaa maalinta kale ayaa cabi kartaa marka sidaas ayaa sameysan kartiin hal mar ayaa karsan kartiin maanta daa karisid bereen qaybtii kale aad cabaysaa soo daarabtidna maalin walba inaad mid fresh aad sameystidna hadaa yacni familiar tihiin half cup ayaa sameysan kartaa intaasiiti enough waay soo marka halkaas bakeeri hadda biyo ayaan ku shubay waa raacsiinaa si fiican aan u dhaqayaa markaan soo dhaqo hadda biyahaasiiti dhan ayaan kamiira aan kusoo dhaqay kadibna waxaan sameynaa marka biyo ayaan ku shubayaa biyahana hal jaag iyo bar qiyaastiisa inaan ku karisid waa because qamadiga waqti ayuu qaadanaa inuu ku bislaado qamadigan oo shulbaha laga sameynaa si fiican inuu u bislaado ayuu fiican yahay marka hal jaag iyo bar oo biyihiisa ayaan ku karinayaa qamadiga sidaas la socda soo hadda wax yariis oo biyo ayaan ku shubay kadibna haddana biyo kale ayaan ku darayaa soo qiyaasta aan ku kariyay hal jaag iyo wax yar oo biyo qiyaastiisa ayaan ku kariyay soo hal jaag iyo bar qiyaastiisa oo biyo ayaa loo baahan yahay inaad ku karisid kadibna hadda sufriyada aan ku shubay qamadigi aan soo nadiifiyay aan soo dhaqay hadda waxaan sameynaa marka waan sii karinayaa dabka ayaan ku dhaafaa waan karinayaa qamadiga waqti ayuu qaadanayaa ilaa adiga 40 daqiiqo kale ayuu kugu karayaa marka hadda aragtid biyaha ka yaraanayo ama ka gursanayo oo biyihii eber naqanaayna biyo kale ayaad ku dari kartaa yacni ilaa ka bislaad marka aragtid oo biseel noqdo markaasiiti enough waay soo markaad waan sii karinaa mar walba waxaa loo baahay in iska fiirisid inay ka gubanin sii gadgadi haddana ku dhaaf dabkiisii haddana way sii karaysaa sidaas ayuu ku karayaa kadib hadda waa idin sina waa aragteen qamadiga hadda almost diyaar waa uu bislaaday wax yar ayaa noo dhiman marka dabka ayaan ku dhaafaa waan sii karinayaa markuu biseel si fiican u bislaado jillic noqdo markaasiiti idin sina sida kale aan sameynaa waxyaabaha aan ka sameynaa hadda aragtid biyaha oo yacni yaraanayo biyo kale aad ku daraysaa yacni ka gubanin soo damo biyo aad ku dartid qamadiga way sii bislaanaysaa wax dhib ma u keenayso marka sidaas la socda soo hadda waxaan ku darsanayaa yaanyo ayaan ku daraa marka qamadiga aragtid wax yariis dhiman inuu bislaado yaanyo ayaan ku darsaday hal xabo yaanyo aan soo jarjaray ayaan ku dhex daray kadibna waan ku dhex karinayaa hadda qamadigi iyo yaanyadii inta kale noo dhiman qaybta qamadiga inuu bislaado yaanyaduna ku bislaanaya kadibna sida kale aan u sameysanayna idin sinay marka waan sii karkarinayaa soo asxaabteeda qaaliga waa aragteen sida uu karkaraa qamadigeena iyo yaanyadeen hadda biseel waa qamadigan masha Allah si fiican ay u bislaaday qamadiga markuu bislaadan waxaad ku ogaa kartaa sidaan ay u jijiidmayaa marka sidaas markuu isku dhagdhag aad aragtid qamadigaaga biseel ayuu noqday yaanyadan sidaas oo kale u bislaaday markaad waxaan sameynaa wax yariis kale ayaan sii karkarinayaa kadibna stoofka waan iska daminayaa markaan damiyana alaabtan waxaan sameynaa waa qaboojinayaa markaa qaboojiye kadibna sida kale aan u sameynaa idin tusinaya asigoo kuleel ama sameey kartid first waxaa loo baahan yahay markuu si fiican u karo waad daminaysaa stoofka meel iska dhig qabooji markuu qaboobo kadibna idin tusinaa sida kale aan u sameynaa soo asxaabteeda qaaliga marka hadda qamadigeena waan soo qaboojiyay ilaa 10 daqiiqo ayaa meel dhiga qaboob waaye qaboob zaaid oo qandac waay marka qiyaastaasiid ayaa la rabaa inaad qaboojisid soo hadda waxaan sameynaa markaa sidaas aan u qaboojiye hadda waan shiidayaa qamadiga because hadhow yacni weyn waaye afku ayuu kaaga galaya sidaas mal rabo wax yariis waad shiidaysaa makiinadan haddaa ku yaalo aad ku shiidaysaa haddaa kan ku yaalina blenderka haddaa ku yaal hal mar ku shub hal mar ayaad daaraysaa markaad daartid 2 mar markuu yeero waad daminaysaa zaaid budo ka dhigan just wax yar inaad shiidid ayaa loo baahan yahay soo marka aniga easy waxaan u arkaa makiinadan oo bajiyaha lagu shiido
kaas ayaan jeclaa inaan ku shiido. Easy waaye, qiyaas ayaad ku shiidanaysaa, daqiiq zaa'idna ma ka dhigaysidne, zaa'idna waaweyn ma u naqanayo. Marka nidaamkii adiga rabtid aad u shiidanaysaa. marka sidaaseti ayaan ku shiidayaa, makiinadaas ayaan isticmaalayaa, si fiican ayaan u shiidayaa. Shulbaha waxayuu ku fiican yahay markuu oo daqiiq yahay oo macaan badan ayuu naqanayaa. Asigoo kuleel ahna ma shiidi kartid, marka hore inaad qaboojisid ayuu naqanayaa, kadib ayaad shiidaysaa. Yaayadan dalac iyo waxaas ma loo baahan, just sidaaseti waad ku dhex shiidaysaa alaabtaada dhan. Hal mar easy waaye, laakiin shulba aad iyo aad u macaan badan waaye. Marka adin karsatiin waa arki doontiin natiijadiisa iyo siduu u macaan badan yahay dhadhankiisi. marka asxaabtada waan sii shiidayaa, si fiican aan u shiido, waa aragtiin sidaas ayaa la rabaa. Zaa'id wax weyn ma ku jiro, daqiiq zaa'idna ma aha. Marka sidaas qiyaastaas ayaa la rabaa. kadibna hadda waxyaabaha kale aan ku dari doono shulbaha iyo sida kale aan u sameyn doono idin tusinaya. Waxaan rajeynaya dhammaantiin inaad ka faa'iidi doontiin maanta shulbadeena sidaan u sameysanayno. Adinkana waxaan rajeynaya berito insha Allah inaad sameysan doontiin, inaad barooway doontiin recipe-ga maanta shulbaha idin soo geliy. marka hadda waan soo shiiday, diyaar waaye, kadibna idin tusinaya. markaan soo shiiday kadib hadda waxaan ku darsanayaa hal qaado qiyaastiis oo maraq digaag ayaan ku darayaa. hadaa maraq digaag rabin khasab ma aha, cusbo ayaa ku darsan kartaa. kadibna waxaan ku darsanayaa hal qaado weyn qiyaastiis oo garam masaala ayaan ku darayaa. garam masaalana waxa waa xawaajiyaal isku dardar oo guriga aan ka sameeyay. xawaajiyaashana sidaan u sameysay garam masaalaha waa idin soo geliyay. marka channelkay gudaha markaa gashid waxaad arkaysaa xawaajiyaasha garam masaalaha sida guriga aan ugu sameysto. guriga ayaan ka sameystay, adinkana waad ka faa'iideysan kartiin hadaa wali arkin xawaajiyaasha sidaan u sameysto. marka channelkay gudaha markaa gashid waad arkaysaa videoga mar dhow ayaan soo geliyay ramadaanka oo 2 maalin 3 maalin dhiman kahor ayaan soo geliyay videoga inaad ka faa'iideen adinkana inaad ramadaanka sameysteen xawaajiyaashaas. yacni mar walba cuntooyinka aad sameysanaysid ayaa ku darsan kartaa. marka xawaajigaaseti iyo maraq digaag markaan ku daray si fiican aan ugu qasayaa. wax yariis waxaa la rabaa xawaajiga si fiican inuu ugu karkaro. kadib hadda waxaan ku darsanayaa hilib aan soo kariyay. waa hilibka already waan soo kariyay, biyo ayaan ku soo kariyay. kadibna meesha ayaan ku darsaday hilibka. shulbaha marka hilib lagu daro oo lagu cabayo macaan zaa'id waaye. marka insha Allah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidi doontiin. anaga shulbaha hilib la'aan ma cuno, laasim hilib inaan ku darsano waaye. hilibka dhadhan ayuu u yeelayaa. kadib waxaan ku darsanaa wax yar oo cusbo ayaan ku daraa. cusbana qiyaastaada iyo dhadhankaaga ayaa ku xiran yahay, qiyaastaada ku darso. hadda waxaan sameynayaa asxaabta intaas waxyaabo ayaan isku karinayaa. shulbahana ani karooto iyo waxyaabahaas khudaar ma ku darsanayno because shulbaha anaga khudaar iyo waxaas hadaa lagu daro ma la cabayo. just simple sidaan ayaa la jecel yahay shulbaha lagu cabo. karooto iyo waxaaseeti hadaa lagu daro shulbaha dhan ma la cabayo. marka simple kan ayaan u sameysanaa oo aad iyo aad u macaan badan. adinkana markaa barooweysin waad arki doontiin sida uu macaan badan yahay shulbaha. hadaa weli sidaan u sameysanin, sidaan u karso waad arki doontaa macaankiisi. mar walbana waxaa jeclaanaysaa inaad sidaan aad u karsatid. marka asxaabtada waxaan sameynaa wax yariis ayaan isku karkarinaa ilaa 3-4 daqiiqo oo kale. xawaajiyaashii hilibkii ayaan ku dhex karinaa shulbaha dhexdeeda. kadibna waxyaabaha kale noo dhiman aan ku darsanayno shulbahina idin tusinaya oo dhadhan u yeelayo. marka sidaas la socdo. marka waxaan sameeyay asxaabta taawo ayaan dabka saartay, wax yariis oo saliid ayaan ku shubay. saliidaas markay kulaato kadibna basashaaseti ayaan ku shubayaa. basal aan soo jarjaro waaye. basashaas waxaan sameeyaa saliidaaseti ayaan ku dhex shiilayaa ilaa brown ka noqdo. basal xirin ma rabno, basasha inaa brown ka dhigtid waaye kalarkiisi. kadibna waxyaabaha kale aan ku daraa idin tusinaya. marka basasha make sure inaa brown ka dhigtid, basal xirin ma loo baahan. wax yariis brown aad ka dhigaysaa, kadibna caraf oo macaan badan ayuu u yeelaa shulbaha. marka hadda waan sii shiilaya saliidaaseti ayaan ku dhex shiilayaa. kadib baa idin tusinaa waxyaabaha kale aan ku darsan doono. hadda basasheeni diyaar waaye. brownkaaseti ayaan ka dhigay, sidaas ayaa la rabaa. marka hadda sheyga labaad aan ku darsanayo waxa waaye tuun ayaan u baahanahay. hal qaado tuun oo lasoo shiiday ayaan ku darayaa. tuunkaas markaan ku dhex daro waxaan sameynayaa basashaaseti saliidaasi tuunka wax yariis ayaan isku dhex shiilayaa. tuunka inay kaa gubato ma la rabo, just wax yariis ayaa la rabaa inaad ku dhex shiidid saliida dhexdeeda. kadibna waad ka saaraysaa. marka sidaas ayaan sameynayaa. wax yariis basashaaseti iyo tuunka ayaan isku dhex shiilayaa. kadibna sidaas ayuu diyaar ku noqonayaa.
hadda diyaar waa asxaabta marka waan ka saarayaa because zaaid inuu tuunka u gubto ma la rabo, just inuu carf ayaa la rabaa. wax yariis markaa aragtid tuunka carfayo bes waad ka saaraysaa meeshaas enough waay. soo hadda marka waxayaan sameynayaa shulbihii dabka ii saarnay, dabka aan u gaabiyey meesha ayaan ku shubanayaa basashii iyo tuunkii aan soo shiilayay. kadibna maasha allah shulbahaaga zaaid ayuu carfaya, caraf oo macaan badan ayuu ka dhigayaa. marka waxaan rajeynaya insha allah dhammaantiin inaad ka faa'iidi doontiin maanta shulbaha sidaan u sameysanayno. sidaas aad u karsan kartaa adigoo wax dalcin iyo shaqo dheer isgelinin. shulbaha sidaan markaa loo kariyo simple and macaan badan waaye. kadib hadda si fiican aan isku qasayaa and then waxaan sameynayaa dabka aan ku karinaa waa u gaabinayaa, dabka hoose ayaad ka dhigaysaa, waad ku dhaafaysaa shulbaha si fiican tartiib ayuu ku karaa. kadib hadda waxaan ku darsanayaa basbaas raqey ayaan ku darayaa. basbaaskaas raqeyga markaa lagu daro yacni shulbaha dhadhan ayuu u yeelaa, sida wax liin ku darto oo kale ayuu ku naqanaa, macaan badan ayuu ka dhigayaa. soo marka basbaaskaas oo raqeyga ayaan ku darsaday. basbaaska raqeygana guriga ayaan ka samaystay, midka diyaarka ma aha, waa midka guriga aad ka sameysanaysid, kaas ayaa kasii macaan badan. kaas ayaan ku darsaday kadibna yacni maasha allah markaa caweysid dhadhankiisii adinkaa barki doontiin markaa sameysin insha allah. soo markaa hadda wax yariis ayaan isku karinayaa, dabka ayaan u gaabinayaa, kadibna sidaas ayuu diyaar ku noqdo shulbaheeni. shaqo dheer kale ma u baahantii, sidaaseeti ayaad ku karsan kartaa. waxay rajeynaya dhammaantiin inaad ka faa'iideen videogan oo shulbaha maanta sidaan u sameysanay. haddaa shulbahaaga weli sidaan u sameysanin marka resipigayga baroway waad arki doontaa sida uu macaan badan yahay. videogan haddaa ka hesheen asxaabta sidaan u sameey maanta shulbaha, videogan like-tiisa sii share garee, sii walaalahaaga asxaabtaada warkaan ka faa'iidaan. hadda maanta nagu cusubtidna kusoo dhawaa familka subscribe saar, gambaleelkana furo, video walbaan soo geliyay si dhaqsay kuu soo gaaraan. marka inta asxaab mar walba i weydiiyaan videogaaga mana soo gaaro, maybe waxayaa laga yaabaa videogayga subscribe waa saartay channelka, laakiin waxayaa dhici karaa maybe kulli ma furanin. marka oo gambaleelka aad furatid waxayaa naqanaa mar walba videoga aan soo geliyo waa kusoo gaaraya. marka haddaa laakiin gambaleelka aad furin video markaan soo geliyo ma idiin soo gaarayo. marka inta asxaab mar walba weydiinaya videoga mana soo gaaro, sidaas ayaa samey kartiin. gambaleelka taawo, video walba aan soo geliyo waa kusoo gaaraya. soo hadda shulbaheeni diyaar waay, baaquliga ayaan ku shubtay. kusoo dhawaada dhammaantiin asxaabteyda qaaliga. kadibna waxii aan ku cuneyno shulbaha idiin tusinaya, marka sidaas la socda. shulbaha baaquliga aan ku shubtay hadda waxayaan kor saaranayaa bajiyo. shulbaha bajiyo markaa lagu cunay zaaid ayuu macaan badan yahay. soo bajiyahaasi ayaan saaray, kadibna wax yariis oo waxayaan kor saaranayaa basbaas cagaar oo aan soo shiiday, kadibna basbaaska oo raqeyga ayaan ku shubtay. marka maasha allah liintaada ayaa soo qaadanaysaa, sidaaseeti diyaar waa shulbahaaga cafur oo kaamil ah oo macaan badan madaxana ku dejinayo. soo marka asxaabta insha allah waxaan rajeynaya dhammaantiin inaad ka faa'iideen videogan. marka asxaabteyda qaaliga videogeena oo maanta shulbaha intaas ayuu ahay. until then insha allah next video aan ismaqli doonaa with new recipe. dhammaantiina kheyr badan idin dhaafa adduunka meel walba ka joogtaan, and as always tacaad igu xasuusta. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.